سببت أفراد فطور كي يدالك كنتا وحير التلهي عنه بالمغريات التلهي عنه علمك إن لغا مشغوله أو لغا مشغوله بالمغريات وحيابها داتك كذية حيابها دلالك الدنيا راحة الدنيا دا إيو وحيابها العابتي عيارها إيو وحيابه لمتك إن لغا مشغوله وإضاعة الوقت إيو وقتك الله ضيعه إن علمك لغا مشغول مرة يخرج يتمشى شيقة سالين أرنت أفراد وحوايب إن علمك الله مشغوله مغرياتك وحيابها قفك كذينية إيو وقتك الله ضيعه تصالوا كانوا وحوير مرة يخرج يتمشى قفكاسي فطورك كل عاي مرة قار وحوير وبحيا أصلا مالها إسكسع صعناي وحدنا مله وقتك ضيع يا كلية وبعض الناس ضدك قارنا يكون مفتونا بمشاهدة ألعاب الكرة وحوايب يرمد كفد نيسان إنه داوضه بنوني عيارها بنوني إنه داوض وعو كفد نيسانها عيار إنه داوضه ومفتون وفد نيسانها عيارها سو كفد نيسانها وحياها فطورك كانوا موبايل وقادنا دقه قشنايا أما قايا بسطه له زقليا أما لوق ولا قلايا محو دغيسانايا كوخ لي waa ciyaareen koox fulana raysay koox fulana rays maxaa faa'iidaha kugu jira banooni inta la qaado meel lagu riday natiijadu in meel lagu rido sooma adiga faa'iida ka hesha maxay tahay isweydii nin aan la ordayo meel ku riday maxaa faa'iida waxa ka faa'iida ma jiraan waxa ka faa'iideysa ma la fi dunya wala fi al-aakhirah ha ku mashquulin mar kitaabka ilaahay soo qaado akhriso waad ogtiin kitaabka ilaahay waxa faa'iido ku jira oo qofka akhriyahay ajar uu ka helayo fara badan cilmi iyo ajar fara badan iyo cibaado inta waa u yahay laakiin waxa aqli darro ah in wixii ku anfici lahaa aad ka mashquusho waxa aan ku anfacayna aad ku mashquul waxa kale sheekhu hadda tusaalaha koowaad ku sheegay waxa way dadka iska socda oo socodka waqtigooda ku lumiyay meelaha warwareegaya arintaasi waa sababta afaraad ee daalka keenta sababta afaraad ee daalka keenta waa in lagu mashquulo waxyaabo muqriyaada oo ku kadinaya oo naftu ay jecesha wa min al muqriyat fi hada zaman waxa kamida internetka kamida waxyaabaha aad u fasahaadiyay dad badan waqtiga ka lumiyay dayacay internetka qayb weyn uu ku leeyahay maanta wuxuu ku jiraa khad internet ama qof oo la hadlaya ama wax alla wixii u soo baxo iska fiirsanaya waa ku mashquulsan yahay qofkaas waqti ma u haray waqti u hari maayo wax ku barto ama wax ku faa'iido waa muqriyaadku sheegu sheegayo in cilmiga looga mashquulo muqriyaadka wuxuu keenayaa kasal iyo futuur iyo daal fara badan ayuu qofku u sababaya iska ilaaliya jazaakumullahu khayran ina ku mashquushaan internet